بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن أصحابتا كحران سولا فلوج waxaan idinka soo salaamahayaa xeebta Lido ee magaalada qadiimka ah ee caasimadda labaad ee wadanka Kenya magaalada Mombasa ayaan idinka salaamayaa runtii xilligan aan duubayo waa bartamaha bisha Janaayo waxaan filayaa asxaabtayda faraha badan ee North America iyo Europe in xaraaradu ay tahay -6 iyo -10 ay tahay oo barafyu da'ayo halkana waad u jeedaan jawiga waa 27 degree waa maalin jimco wanaagsan sida awgeed magaaladan Mombasa la yiraahdo waxa ku nool hadii brief history aad ka siiyo ilaa iyo 1,200,000 oo qof ayaa ku nool hadii loo fiiriyo qaabka dadku ay u nool yihiin waxa ku nool dad aad u fara badan oo Soomaali dad kale oo waxa ku nool oo ajaaniba Soomaali ay ku jiraan waxa ku nool dad European ah dad Chinese dad Hindi ayaa ku nool runtii waa magaalo aad u qurux badan jawigeedu uu yahay jawi aad u wanaagsan isla markaana dad badan oo Soomaali ah qurbaha ka soo guuray ay soo degeen si caruurtooda ay u baraan dhaqanka wanaagsan ee Islaamka iyo diinta ay u baraan marka vlogan intaan waday videos kala duwan ayaan waxaan ka duubay magaaladan Mombasa marka waxaan isiri si dhaxanta dadku ay uga baxdo in aan soo duubo clipkan yar inaan soo duubo soo la tusaya magaaladan iyo qaabka loo noolyahay runtii waa sandy beach laakiin wax ay kaga duwan tahay male xeebaheeni ku yaalay wadanka Soomaaliya waxay kaga doontaa bayraatay ma jirto sida awgeed ayaa waxa ila daawanaysaan iminka meesha dadku ay isugu yimaadaan geel ayaa jooga laga raaco waxa kale oo ku yaala meelo maqaayada cunto laga cuno isla markaana lagu dabaasho xeeb dad badan ay ku jiraan doomo la kareysto iyo hoteelo aad u qurux badan oo dad badan oo dalxiisayaal ah ay degan yihiin oo ujeeda marka waa sandy beach laakiin runtii haddii aan u fiiriyo liidadeeni kuwii Jubbooyinka ku yaalay kuwii Shabeellayn ku yaalay ayaa ka sii qurux badan laakiin farqiga u dhaxeeya meeshan iyo meeshaas waa waxa kaliya waa nabadda ayaa inta keentay marka magaaladan waa la kala nool yahay dabcan qof kastoo ku nool magaalada qof lacag leey ma ahan dad masaakiin ayaa ku nool oo noloshooda maalin walba la dagaalama dad waxa jira maal qabeen ah dad dibadda ka soo guuray dad Soomaaliya ka soo guuray waayo hadii loo fiiriyo magaalada Nairobi oo halkan u jirta 489 kilomitir u jirta hadii loo fiiriyo way ka raqaysan tahay dadkana aad ayay ugu nool yihiin meeshan Soomaalida ah sida awgeed ayaa waxaan rabaa kale in aan idin tuso dadku waqtiyada ay ku qaataan ee wanaagsan geeli baaskiilkii doomihii in ay halkan yaalaan runtii hiimad ma leh ama lagu dhididi maayo marka la socdo way kaga duwan tahay xeebaha kale waayo neecaw ayaa badweynka Hindi ay halkan ka soo tufaysaa sida awgeeda way ku yar tahay marka waad u jeedaan waa berigii hore saacadu waa 9 subaxnimo dadku iminka ay ku soo ururayaan waana maalin jimco ah taban wadankan weekendigiisa wuxuu noqonayaa maalmaha Sabtida iyo Axad ayuu noqonayaa laakiin dadka muslimiinta ah ee ku nool ayaa waxay yimaadaan maalmaha kale ee caadiga ah ay halkan yimaadaan iyo maalmaha jimcaha marka dhankaas waxaad u jeedaan guri aad u qurux badan oo villooyin ah waxaan inta badan aan ku aragnay degan yihiin dad Chinese ah ama wadanka China ka yimaaday iyo dad u dhashay wadanka Hindiya iyo dad Talyaani ah ayaa u badan xilliyadan ay ka soo cararaan Europe iyo North America ay ka soo cararaan marka meelo qaarkood badda gadaal ayay u laabatay oo waxaad arkaysaa in jasiirado yar oo dabiici ah ama natural ah ay ka abuurmeen ayaa arkaysaa marka hadii lagu socdo ilaa iyo 10 kilomitir ayaa lagu socon karaa halkan isla markaana biyaha iyo doomaha iyo wax walba aragtay biyaha wada aragtaan qaabka yihiin hadii koraasi eegtidna waa cirka iyo cadceeda runtii waa mid aad iyo aad u qurux badan marka saadii orday kaga ballan qaaday solo vlog mar walba meeshaan tago oo fursadaan u helo ayaan jeclahay inaan idinkaga soo gudbiyo
waxa la wixii aan isleeyahay dadku way iman karaan marka dad badan oo qoysas ayaa halkan yimaada oo meel kala duwan ka yimaada dalxiis u yimaada waxa la ii sheegay meeshan iyo Kismaayo qofkii doon ka raaca dhowr saacadood ayuu soconaya ilaa iyo 5 saacadood Kismaayo waa lagu gaari karaa halkan waa badda isku xirta Kismaayo iyo Mombasa waana isku qaab runtii waa isku qaab waxay kaga duwan tahay in dalxiisyada yimaadaan waa nabad oo aad loo adkeeyo haddii la helo waxay noqonaysaa meel runtii Mombasa ka wanaagsan ay noqonaysaa Kismaayo marka waad arkaysaan dadku iminka ayay si fiican u soo ururayaan marka intaan ka bixin vlogan badda magaalada Mombasa waxaan idin tusayaa meeshan sandy beach ka yiraahdaan ama meesha liidada caraysan ama carrada ay taalo oo dabiiciga ah ayaan idin tusayaa biyaha saako artaan inta ay sii gaareen hoteeladan waxaa la ii sheegay in qoys ay ku degi karaan inta u dhaxaysa 40 ilaa iyo 80 dollar oo quraac ay ku jirto saaka ayaan weydiiyay markii aan halkan aan imid isla markaana caruurta halkan la keeno dad ayaa kugu shaqaynaya isla markaana ku ilaalinaya isla markaana badda qof walba uu ku baashaalaya aad u jeedaan kor ahaan hadaa idinka tuso aan kaamirada kor u qaado aad u jeedaan duwayla meesha ugu dambaysa waxaan aad ula dhacay timirta ama palm tree halkan ku yaala dabeel yar ayaa iminka soo dhacdo socota waxaa la ii sheegay xilliga la gaaro weekendiga waddanka Ingiriiska uu ka yahay Sabti Axad Kenyana uu Sabti Axad ka yahay tabcan xeebtan sida liido iyo ka daran ayaa loo soo iibsadaa dad aad u fara badan ayaa yimaada marka dhankaas ayaan waxaan tusayaa inaan u yara socdo dabeelahana waa maqlaysa marka waxaan isku dayayaa in aan dhanka dabeesha ka soo gaarso dhanka ay ka imaata dabeesha marka waad mahadsantihiin qaybtan vlogga ah xeebta liido ee magaalada Mombasa oo sida la ii sheegay ah magaalada ugu qadiimsan waddanka Kenya isla markaana ah magaalada labaad waxa loo socdaa qofkii doonaya inuu tago magaalada Nairobi gaariga wuxuu u socon jiray 12 saac ilaa 13 saacadood diyaaraddu waxay u socotaa 50 daqiiqo laakiin hadda waxa ka wanaagsan oo 4 saac ilaa 4 saac bar u socda tareen aad u dheereeya oo insha Allah aan doonayo barnaamij in aan ka sameeyo tareenka ka shaqeeya magaalada Mombasa ilaa iyo magaalada Nairobi marka runtii waddankeena hadduu nabad ahaan lahaa meeshan ayaa sidaan loogu baashaali lahaa haddana waa lagu baashaalo liido waan arnay u buuxdo laakiin ilaahay maaragtay nabadda ha u sii badiyo halkan ayaan ku soo afjarayaa qaybtan labaad ee badda liido ee magaalada Mombasa ee waddanka Kenya wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh